maxaa loo baahan yahay caruurey marka la yaryar yahay waa muhiim caafimaadka iyo nadaafadu markasta waalidku waxay idin sheegaan caafimaadka iyo nadaafada idinkaga sheekeeyaan marka aad wax cunaysaan cunno isu diyaarinaysaan gacnaha inaad saabuun ku soo dhaqataan musqusha markaad gashaan waa inaad gacnaha saabuun ku dhaqataa ama se daawada tan daawo kale oo jeermiga disha oo antibacteria la yiraahdo baa lagu dhaqdaa oo guriga la idin taala yaa lagu dhaqaa waa inaad falaxalantiin qudaarta banaanka taala oranjida mooska cambaha babayga liinta saytuunka tufaaxa markaad soo gadataan idinkaan dhiqin lama cuno dhulku ku dhacay waxa wasakh baa soo saabtay dad baa soo raray aan falaxalnayn oo fariyada wasakh leeyihiin koow waxa iska suulowda meel xoolo iyo dad ay ku saaloodeen inuu ku dhacay oo laga soo raray ayagaan dhaqanayn ma cuni kartaan iska ilaaliya koow markaad hargab qabtaan hargab markuu idinku dhaco qof ha salaaminina iska ilaaliya ha salaaminina waxaad tirahdaan hargab baan qabaa qof yahow raalliga ahow Soomaalidu salaantay jecel yihiin marka ha salaamin waan hargab baan qabaa labo candhuufta ha ku tufin markaad hargab qabtid iyo markii kaleba dariiqa candhuuf ha ku tufin warqadan hadda dhulka lagu dhaqdhaqahayay ku tuf ayada markaad qufacaysid markaad hindhisaysid haddaad aad haysatid karintiraha soo qaado ku dabool markaad hindhisaysid markaad tiraahdo ama markaad qufacaysid wayna afkaaga ugu daboolan yahay waxa kaa soo daadanaya jeermi badan baa kaa soo daadanaya bacteria dadkay gaaraysaa dadkii kula fadhiyay gaaraysaa ma aragteen markaad hindhisaysaan iyo markaad qufacaysaan dabool afka waxaad maqasheen inuu carrigeenna soo gaaray xanuunka la yidhaahdo coronavirus ma ahan inaynu ka baqno laakiin waxaa jira tillaabooyin muhiim ah oo haddii aan samayno nagu caawin kara inaan caafimaad qabno ugu horrayn waxaa muhiim ah inaad gacmahaaga dhaqdid ka hor intaadan cunnada cunin markaad ka soo baxdid suuliga iyo markaad ka timaadid goobaha dadku ku badan yihiin ugu dambayn usbuucyada soo socda ku dadaal inaad samaysid arrimahan ka dheeraaw ugu yaraan 2 mitir dadka aan qaraabadaada ahayn ha ku salaamin gacantaada cidna ama xabadka ha saarin kuna dadaal inaad gurigaaga joogtid haddii aynu samayno arrimahan aan soo sheegnay waxaynu ku guulaysan karnaa inaan xanuunkani faafin